kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalamayaasha al-shabaab oo xubnihii ugu faraha badnaa isugu geeyay deegaanka Aboorey halkaas oo lagu xoolo qalay waxa sidoo kale xubnaha halkaas la geeyay kamid ah kuwa aanan aqoon af Soomaali oo ku hadlaya Oromo iyo Sawaaxili waa ajaanibe maxay tahay ujeedada ka dambaysa qorshaha dagaal miyay damacsiin al-shabaab waan soo gudbin doonaa ka horse muuqaalka like saaro subscribe bartan ku soo biirsa doosha wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ciidamadii ugu faraha badnaa ay soo gelisay deegaanka Aboorey ee dhacaduleedka waqooyi bari ee degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan waxayna al-shabaab ku soo bandhigtay halkaas gaardis ballaaran oo dholatus ah al-shabaab ayaa deegaanka Aboorey xoog kula wareegtay 10kii Abriil kadib dagaal culus oo ay la galeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda taas oo suuragelisay in ugu dambeyn ay deegaanka Aboorey iyo deegaanada kale ee ku xeeran ay gacanta ku dhigaan ila wareedda lagu kalsoonaan karo dhanka ammaanka ah ayaa xaqiijiyay in maalmihii la soo dhaafay ay ugu dambeeyeen degmada Buul-Qable ee dhacda duleedka galbeed ee degmada Buulaburde ay soo gaareen saraakiil iyo ciidamo badan oo ka tirsan shabaab ciidamada soo gaaray Buul-Qable ayaa waxa loogu xoolo qalay halkaas waxaana goobtaas ka hadlay isku soo baxa ka dhacay fagaare ku yaala Buul-Qable oo ku dhacay dil qisaas ah kaas oo loo geystay askari ka tirsan ciidanka danab oo ay gacanta ku soo dhigeen xubnaha al-shabaab waxayna sidoo kale sheegeen in ay marsiiyeen sharciga ciidamada ayaa waxa sidoo kale la soo warinayaa inay isaga kala gudbayeen webiga Shabeelle ee mara galbeedka gobolka Hiiraan iyaga oo soo gaaray deegaanka Aboorey waxaana la xaqiijiyay ciidamadaas qaar ka mid ah inaysan af Soomaali aysan ku hadleen oo ay ku hadlayeen Sawaaxili iyo Oromo sida ay sheegeen dadka deegaanada ay soo mareen isla markaana ku dhaqan oo ay kamid tahay Aboorey iyo gobolka Hiiraan al-shabaab ayaana xubno ka tirsan saraakiisha ajaanibta ah iyo xubnahooda oo ku hadlaya Sawaaxiliga iyo Oromada waxay hadda ka mid noqdeen ciidamada al-shabaab ka tirsan ama xubnaha ka tirsan shabaab ee dagaalka dawladda kula jira waxayna sidoo kale dadka deegaanka sheegeen in xubnahan ka tirsan shabaab waa af Soomaaliga aqoon wadooyinka qaarkood xatee aysan aqoon oo la kala tusayay si walba ha ahaatee ciidamada kooxda al-shabaab ayaa waxa sidoo kale la soo warinayaa deegaanka Aboorey in aysan laga aqoon halka ay sidoo kale ku wajahan yihiin waxaase jira dhaqdhaqaaq qorshe cusub oo ay wadaan dadka deegaanka kuwaas oo doonaya in al-shabaab dib ula wareegaan deegaanka Aboorey wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in al-shabaab halkaas ay doonayaan in dagaal culus oo aad culus ay mar kale ay ka qarxiyaan aragtida qaybtan kaga soo dhiibo qodobkaas iyo sidoo kale waxaad ka aaminsan tahay waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan like saaro subscribe bartan ku soo biir si aad u hesho wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay